madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo isagu booqasho ku yimid dalka Ireland xadiina soo dhaaftay halkaasi oo uu kulan kula qaatay madaxweyne sharafeedka dalkaasi Ireland ee Michael Higgins magaalada Dublin kulankaasina uu ka dhacay ayaa ka soo kulanadii uu ku qaatay magaalada Dublin ee dalka Ireland afartii cishe ugu dambeysay oo ay ku jirto kulan uu la qaatay jaaliyada Somaliland ee ku dhaqan dalka Ireland ayaa waxa uu soo kicitimay dhinacan iyo magaalada London ee caasimadda dalka Britain habeenkii xalay ahaa waxaana uu madaxweyne Siraayo ka soo degay garoonka Heathrow halkaasi oo ay ku qaabileen xubno kamida jaaliyada Somaliland ee ku dhaqan dalka Britain oo qaarkood ka kala yimid magaalooyin kala duwan oo ay kamid yihiin London iyo Bristol. Raxiim farxad weyn bay noo tahay aad iyo aad baan ku mahadinayaa sida qiimaha qaal noo soo dhaweyseen waan idinka mahad celinaynaa sharaf iyo qiimo weyn waliba sida caadadeedina ahayd insha Allah taala wixii ka dambeeyana way iska warsan doonaa dalkii dadkina waa lagu fiicnaa aad iyo aad baa lagu wanaagsanaa nabad qab badan iyo wanaag iyo farxad iyo sharafna waa kaga nimid wafdigan uu hogaamiyo ku sugnaa dalka Itoobiya ayaa kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya mudane Haile Mariam Desalegn waxaana kulankan ku wehelinayay safiirka Somaliland ee u fadhiyay dalka Itoobiya Maxamuud Aadan Jaamac Galaal waxaanu barnaamijka ka wada hadlay danaha labada dal baan ka wada hadlay xiriirka labada dal baan ka hadlay dhinac walba leh dhinaca nabadgelyada leh aan ka hadlay shir fiican oo wanaagsan baan noo dhacaan si wanaagsan isu afkarnay aad iyo aad aan u soo dhaweynaa waan uga mahad celinaynaa dawladda Itoobiya madaxweynaha sida sharafta qiimaha noo soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo maalmihii ugu dambeeyay kulan hawleed ugu maqnaa dalka Turkiga ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay wafdigan uu hogaaminayo madaxweynaha ayaa waxaa kamid ahaa wasiirada madaxtooyada iyo waxbarashada Somaliland oo wehelinaysay marwada koobaad ee dalka madaxweyne ku-xigeenka Somaliland iyo raxan kamid ah golaha xukuumadda ayaa ku soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha Cigaal International Airport saaka waxaan u ambaxayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaas oo aan casuumad rasmi ah ka helay dawladda Itoobiya waa dawlad aan mudarisnahay waa dawlad aan saaxiibnahay waa dawlad wax badan naga dhaxeeyaan waxaan aaminsanahay in badan oo dan ah iyo maslaxad ah ha noqoto mid nabadgelyo ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid ijtimaaci ah oo dal iyo dadba aan wadaagno ayaa naga dhaxeeya madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland ee Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa booqasho ku yimid magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka wuxuuna ugu horeyn mid u gacan qaaday dadweynihii faraha badnaa ee ka soo qayb galay soo dhaweyntiisa waxaynu garoonka caalamiga oo Sambol Minneapolis aynu ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo marwadiisa Hodan Ciise madaxweyne ku soo dhawow magaalooyinka mataanaha ah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aad baan idin salaamayaa waana farxad weyn bay tahay inaan maanta imaado Minneapolis iyo Minnesota aan ku soo booqdo jaaliyadda Puntland gaar ahaan iyo guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeedba booqashadaydu saan u sheegay waxay la xiriirtaa inaan dadka u imaado inaan waraysto inay na waraystaan inaanu isu xog warrano madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Boofaysa Xasan Sheekh Maxamuud oo tan iyo intii uu madaxweynaha noqday markii ugu horeysay booqasho rasmi ah ku yimaada dalka Kenya ayaa soo dhaweyn diiran kala kulmay jamhuuriyadda dalka Kenya oo ugu horeeyo madaxweynaha Kenya Mzee Mwai Kibaki ayaa wada aaday aqalka looga taliya dalkan Kenya ee State House-ka halkaas oo ay ku wada qaateen kulan in muddo socday oo ay labada madaxweyne iyo wufuudi la socotay ay si saani ay isugu afkarteen calaaqaadka labada wadan ee ku qotoma saaxiibtinimada soo jireenka ah dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u ambabaxay wadanka Itoobiya madaxweynaha Soomaaliya ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya uga qayb galaya shirka madaxda wadamada IGAD ay ku yeelanayaan kaasi oo looga hadli doono mushkilada ka taagan dalka koonfurta Suudaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta soo gaaray magaalada Johannesburg ee dalka South Africa halka uu kaga qayb gali doono shirka madaxda Afrika iyo dalka China wafdiga madaxweynaha oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Pretoria ee caasimadda dalka South Africa halka oo inta badan madaxda Afrika iyo wufuudda kale caalamiga laga soo dejinayay
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta u ambabaxay dalka Turkiga halkaasi oo kaga qayb galayo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. maanta magaalada Kismaayo dib ugu soo laabtay wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaasoo muddo dhan hal toddobaad safar shaqo ku joogay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxaana soo dhaweynta madaxweynaha ka qayb qaatay saraakiisha maamulka Jubbaland saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM cutubyo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland odayaasha dhaqanka ururada bulshada rayidka ee ku nool magaalada Kismaayo iyo dadweyne fara badan kuwaasoo garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo u yimid sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen madaxweynaha maamulka Jubbaland. madaxweyne adiga waftigaada waa soo dhaweynaa soo dhaweyn ka bacdi insha Allah waxaan isleeyahay safar baan soo galay safarkanagii dhinacyo badan buu ahaa laakiin waxaan isleeyahay kulligii guul buu ahaa waxaan gudbinay fariinta aan wadnay waxaan isleeyahay si dhaga furan baa lagu qaatay cidna colaad ma aanan haynin cidna dhib ma aanan haynin waxaan u tagnay dadka rabitaankooda inaan anagoo ka turjumayno u geyno international community-ga iyo dowladaha dariskaana cid kastoo na weydiisa waanan gaarsiinay fariintaan wadnay dadkuna si iqbaala bay u soo dhaweynayeen iyagoo aqbalayay soo dhaweynayeen sababtoo ah rabitaanka dadku waa shay ka muhiimsan wax kasta haddaynan rabitaanka shacabka raacina dee wax badan baa inaga halaabaya waxaan isleeyahay rajo fiican baa arrintaa ka jirta aad bayna arrintu u fiican tahay idinkana guul baan idiin rajaynayaa wixii ka dambeeya waxaan rajaynayaa inaan dib wixii wadahadal iyo arrin uga dhigan doono